soo dhawaada naagtan gurigeeda dhexdiisa intay keegan weyn soo qaadatay hoostiisa ku dhuumane waxay maqlaysaa marka in ninkeedii iyo naag kale ay guriga gudaha u soo galeen ninkeeda naagta la socota wuxuu ku dhahaa keegan xaaskeyga meesha ku diyaarisa u maleynaa marka waa inaa jarnaa midaan si aysan baxar u gelin markii keega la jaro ninkeedii waxay u soo diray farriin si uu u joojiyo keega inuu jaro wuxuu dhahaa xaaskeyga waxay ii soo dirtay farriin sheegayso inay maqnaa doonto ilaa iyo biri subax markii uu ogaaday inay xaaskiisa soo laaba doonin ilaa biri subax waxay aadayaan qaybta sare ee guriga midaan meeshii ka soo baxay waxay maqlaysaa midii ninkeeda la socotay oo soo socotay kadib meeshii ay ka soo baxday ku laabanay midaan intay boorsadeeda soo qaadatay waxay ka soo dhex baxsanay taleefankeeda kadib waxay wacaysaa nin tuug ah oo ay saaxiibo yihiin waxay ku dhehaysaa waqtigu aad uu noogu yar yahay ee location aan kuu soo diraa gurigaas markaa timaada alaabta qaaliga oo taalo dhan waa inaa xadaa hana ka welwelin qofka guriga leh aniga kaa mashquulinayo markii ay baxdo midaan meeshii ay ka soo baxaysaa iyadoo maqlaysay wax walba oo ninka iyo naagta ku wada sheekaysanayeen tuugii locationka loo dirayna waa kanaahay gurigii uu yimaaday iyadana meesha kale ku dhuumanay markii uu gurigii gudaha u soo galay baashaan uu arkaa isla iyadiina hooshii ka bilaaba haddana wuxuu arkaa sanduuqan yarka ah oo meeshan saaran markii uu furan wuxuu arkaa inay alaab qaaliya ku jirto midii guriga iska lahayd markii ay aragto inuu ninkan tuuga alaabteedii qaaligahay uu qaadanayo qorshe ku soo dhacaya ay tuugan ku qabato isagoo wax raadinayo wuxuu arkaa faraantiyaashan dahabka ah oo dhulka safan wuxuu la yaaban yahay qofkii sidaan quruxda badan faraantiyaasha u safay laakiin wuu iska arursanaa waqtiga ku socdee kadib midii guriga leeda intay ku soo baxdo wuxuu naxaa naxdinta ay naxaan tuugadu markii uu fiir isdhaho waxay indhaha ugu shubay alaab ay sii diyaarsatay waxay u sheegaysaa marka in uusan waxba ka welwelin oo xoogaa kadib uu soo kici doono ku dhowaad hal saac oo suuxsanayn uu soo kacaa isagoo weliba gacmaha iyo afka ka xiran waxay ku dhehaysaa tuugu ii dhegayso laba qorsha ku haya mid dooro inaan booliska u waco kadib ay ku qabtaan oo ay ku xiraan ama inaa samayso wixii aan samay ku dhaho marka hadda labadaas qorshe midkee dooranaysaa midka koowaad ama midka labaad waxaana ku sheegaa midka labaad inuu adiga ku wanaagsan yahay kadib afka intay ka furto waxa weydiinaa maxaa sameeyahay qorshaha labaad rabaaye waxay ugu jawaabaysaa waxaan kaa rabaa in aad xaddo alaabta gurigan taalo intuu yaabo waxa weydiinaa hawshaas mar hore haystay maxaa ii qasda haddii aad sidaa rabto waxay ku dhehaysaa ma raba inaad xaddo alaabta aan anigu leeyahay laakiin waxaa kaa rabaa inaad xaddo keliya alaabta uu ninkaygu leeyahay kusoo dhawow marka meeshan waxaa yaalo laabtob midka geemka lagu ciyaaro ama playstation saacad kala kacsan marka wax kastoo meeshan yaalo waa xadi kartaa asna wuxuu taagan yahay muddo 30 sano ah hawshan wadaa laakiin weligay ma arkin qof adigoo kala ah tuugada u wanaagsan kadib waxay ka furaysaa wixii gacmaha ugu xirxirnay si uu alaabtiisa u qaato waxayna ku dhehaysaa alaabta qaaligeeda oo iga xadda dib iigu soo celi asna waa kanaahay alaabtii koowaad markii uu helayo u soo celina waraaqadii albaabka ku dhijinaysay oo ninkeedu u akhrisaday ninkii tuugayna waxay ku dhehaysaa alaabtaadii oo dhan ma soo qaadatay wuxuu ku dhahaa ha alaabteedii dhan waa soo qaatay laakiin adiga xagga u socotaa boorsadaada soo qaadatay waxay u sheegaysaa in aysan weli go'aansan meesha u socoto wuxuu ku dhahaa haddii aad go'aansan meesha u socoto ka waran haddii aniga i raacdo isla markii waxay maqlayaan ninkii guriga iska lahayo soo socday kadib meeshii isaga cararaya isla markii uu soo baxo wuxuu arkaa waraaqad guriga albaabkiisa lagu dhajiyay waraaqadii albaabkii ka soo fujinaa si uu u akhriyo laakiin midii la socotaa ka qaadaysa dhehaysa ka aniga akhrinayay waxaa ku qoran waa kaatiga waana ku baahsan tahay PlayStation-ka markii uu PlayStation maqlo waxaa ku soo dhacaya midkii isaga xaafada u yaalay intuu soo baxo wuxuu fiirinaa meeshii uu geemkiisa u yaala laakiin wuu ka weynaa isagoo qaylinaya wuxuu dhahaa